بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيا عشر كيني كاسو أنا هنقول لك إن أنت فائدة suuqyada noocyadooda loo yaqaano binary and digital options hadda ka hor waxaynu soo dhiganay casharada nooc kuwaas oo maaragtay noocyo badan iyo wajiyo badan sameeya si looga ganacsado anigu waxaan idin soo jeediyay fikir ah maxaan ku rahdaa binary and digital options kuwaas oo ah kuwaan mostly ku use gareeya anigu si aan uga ganacsado aniga oo idin soo sheegay taxanaha iyo sida wadooyinka loo soo maro video idinku soo sheegay haddii videogan kugu cusub yahay fadlan isku day inaad videoyadii hore soo daawato sidoo kale videoyadeydan maaha kuwa kugu dhiirigelin inaad investment lacag dhaba dhigato ilaa aad ka xoreynayso caqligaaga aad ganacsiga u xoroobayso taas maxay ku iman kartaa inaan aniga garab badan iga hesho anigana garab waxaad igaga heli kartaa mar walba adigoo live igula socda cashiradeyna iyo waxyaabaheena information kala qaataa sidaan horeba idinku sheegay sessionska iyo waxyaabahan aan bixinayo dhan waa free usually qofka aqoon noocan oo kala bixinaya dadka lacag uga baahdaa anigu alxamdulillah lacag uma baahni maanta waxaan u baahanahay inaan caawiyo dad badan beritoole waxaan rabaa dadkaas mustaqbalka ay dhistaan inaan sabab anigu u noqdo adiguna aad guul gaadho aniguna aan guul gaadho guushaydu waa guusha aad adigu gaadho maadaama uu guul hadafyadeedii short goalskii ku socdo main goalkuna waa inaan hadaf dheer aan xaqiijiyo kaasoo ah in legacy aan reebi karo maanta kaasoo ku bari karo dad walaala ay aqoon ku filan ay kaga ganacsadaan suuqyada iyaga oo aan cid bini'aadana uga baahnayn wax la yidhaahdo signal aan uga baahnayn cid bini'aadana waxa la yidhaahdo maxaan ku rahdaa analysis iyo technical analysis videoskaygan baad daawanaysaa haddaad binary options tahay ama binary option trader inaad noqoto sida ugu saifsanna videoskaygan baa kaa caawin kara haddii aad rabto inaad forex gasho waxaa jira macallimiinta lagu kalsoonaan karo oo adigu aad inaad search garayso ku xiran tahay maxaan ku rahdaa kuwa waxaa jira maxaan ku rahdaa aad adigu ka faa'iidaysan karto so haddii aad forex ku ganacsan karto iyo haddii kaleba waa kuu furan yahay uguma maaragtay wax fikir oo kaaga sheega adiga ikhtiyaarkaa ku xiran tahay waxaan idiin sheegayaa marka binary and digital options aynu ka tirin garanayno binary and digital options ma khamaar baa waa su'aalaha inta u badan isweydiiyaan binary and digital options wax khamaar la yidhaahdo ka fogyahay waa marka aad adigu ugu soo talagashay inaad khamaarto dabcan dee nin ugu talagalay khamaar buu la tegayaa khamaar markaad la tagtayna 50-50 haddaan iminka shilin rogo shanna dhinaca wejigu igu dhacayaa shanna dhinaca lacagta soo khamaar adiga inaad ka dhigtiin kale adigay kugu xiran haddii laakiin aad ugu soo gasho waxaan experience inaad aqoon korsato adiga oo dad khubaro oo waxaan ku shaqalay ganacsi adeegsanaya aqoonta ka faa'iidaysanaya naftaadana baraya practice ay ku gaari wadadaan anigu soo maray ma dhawa waxay soo martay raf badan iyo culays badan iyo maxaan ku rahdaa waqtiyo badan oon xitaa niyo jaboon idhaahdo noloshaada ma achieve garan kartid waxa keliya ee igu waday inaan hore u socdo keliya aniga oo wax binary and digital options Soomaaliya hore igu horreynaan u soo galay waxa loo yaqaano waxay ahayd greed damac baa igu jiray damacaasoo ka qaba riyadayda iyo mustaqbalkayga damaca kugu jiray intuu leeyahay balance kare adigu suuqan inaad energy intee baad u haysaa inaad ka shaqaysato because waxaan ku sheegay practice intaad ku jirtaa million times khasaare analyzing aad ku jirtaa million times khaldami diyaar ma u tahay weeyaan su'aasha meesha taalay waxa analyzing dhacaya waxa practice dhacaya inaad si kalsooni loo gasho si kalsooni aad uga ganacsan karto si kalsooni lehna aad maaragtay profit u qaadi karto adigay kugu xiran tahay anigoo aqoon uma ku faa'iideynaya asa walaalkaana waxa weeyaan wixii aan kugu taageerayay videoskayga kugu anfacaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka aflixi doontaan hami weyn iyo mustaqbal weyn markaad leedahay waxa aad isku balance gareynaysaa naftaada maxay rabtaa maxaad se xaqiijin dabcan nafteedu waxay u samaysan tahay inay naga ilaaliso waxyaabaha cabsida iyo maxaa la yiraahdaa keenaya maxaa la yiraahdaa waxay ka cabsooto keenaya ayay nafteena maaragtay inay inaga ilaalisaa so wixii ayna comfortable naftaada ku ahayn oo dhan way ka ilaalinaysaa so ganacsigan oo kale markaad kalsooni darro qaaday comfortable ku noqon weydo way ka ilaalinaysaa ay waxay ka oranaysaa maaragtay inay safe kuma aha waxani so adigu kugu xiran tahay inaad naftaada go'aan u yeesho oo tiraahdo xagee ayaan maaragtay naftayda u go'aamiyay xagee ayaan u socdaa wadadan aan u socdaay ma tahay wado u qalanta inaan halisteeda qaato anigu go'aankayga waxaan gaaray sanad ka hor waxaan go'aankayga nolosheeda ku go'aamiyay maxaan ku rahdaa muddo iyo habeeno aan u seexan waayey inaan gaadhona waan xaqiijiyay
maanta inaan hadaf ka sii fog gaadhana waan xaqiijinayaa inaan dad badan oo walaalo ahna aan sameeyo aad bay iigu weyn adigay kugu xiran tahay intaasna waa waana ka mid ah waanooyinka aynu mar walba in isweydaarsannahay xaq u leenahay ama aynu isku taageerayno so morally haddaan idiin sheego aniga waxay igu kalifay in aan suuqa macnaha kusii jiro ama aan faa'iido saxa oo aan taaban karo oo aan cuni karo aan ka sameeyey waxay ahayd subaxii markaan soo koro waxaan isweydiin jiray hadafka maanta kuu qorshaysan waa maxay maxaa kuu go-an baa isweydiin jiray marka aan habeenkii seexanayna maanta maxaa kuu qabsoomay baa isweydiin maanta hadday go-an tahay lacag inaan ka shaqeeyo suuqa intaa leeg waxaa laga yaabaa inaan lacagtii ku dhaweeyo at least because of hard work ku dhawaanaya marka ugu horeysa ma gaadhaysid nobody qofna ma gaadho wuxuu doonay marka ugu horeeya xitaa micno ma yeelanaysa marka aad gaadho laakiin xamaasad iyo waxay ku yeelanaysaa xiisad marka aad wixii ay kugu adadkaadaan oo haddii aad tahay qof energetic oo waxaan ay ka go-an tahay so waxaan filayaa waanooyinka iyo talooyinka aan siinaya waa kuwo trades ku saabsan haddii aad ku base garisaan noloshiina dhabta ahna waa macnaha waa waxyaabo idin anfici waxaan aan idiin sheegayo oo dhan waa waxyaabahan anigu la soo kulmay waa waxyaabaha aan ugu socdo maanta inaan horumar iyo guul ka gaadho suuqyadan si aan uga gaadho suuqyadan guul waxa aan u baahanahay inaan naftayda khasaaraha dhaca halkeebii gaarsiiya anigu maanta haddii aan khasaaro lacag $10,000 ah kama welwelayo kalsooni baan weliba ku soo galayaa berito maxay ku timid kalsoonidaasi maxaana ku bilaabay waxaan ku bilaabay anoo $400 oonan afford garayn karayn markaad arday tahay macnaha mostly family ha ku maamulo Soomaali baan nahay qof kale dhaqaale meel kale ha ka soo galo laakiin lacagaad shaqaysatay markaanay ahayn 400 oo aadan hayn lagaa qaado xaf lagaa siiyo of course waad niyad jabaysaa waxay kugu kalifaysaa inaad xitaa wax haba ka baxdo so anigu meel sidaas oo kale aan soo maray in lacag aan haystay xitaa ku dhex waayso laakiinse ma istaagin waxaan isku daynaa in investment kala galo waan waayay investment mar saddexaad baan isku dayay sidiinaana waan ka degdegayay maxaan ku idhahdaa in maaragtay aan practice sameeyo oo waxaan doonayay faa'iido inaan soo taabto markaan khasaaro badan galay waxa aan ogaaday waxa aan maaragtay qaladku halku ka jiro mar baan isfidiyay software-ka ama platforms-kan isticmaalayso ama suuqyadan laftoodu ama yihiin kuwo lacagtooda oo aan wax xaqiiqaba jirin waa ku socday kama aanan joogsan hal habeen kama aanan seexan horaan idinku sheegay inaan qof IT engineer ku soo baxay waxaan aaminaa anigu algorithm wax la dhahdo technology waan aaminsanahay wixii logic ku shaqeeyo oo dhan waan aaminsanahay so suuq wuxuu ii tusay inaan logic ku shaqeynayo markuu iska tusay inaan xaqiijiyan go'aansan so lacagaha khasaaray kama welwelay maantana haddii 10,000 aan halkaa ku liqo oo maaragtay suuqa hal mar dhaafsado waxaan kamid ahay every single trader kamid ah traderska adduunka maalin walba lacagta kusoo kordhiya lacagna laga qaato laakiinse waxaygama khamaar baa may boqolkiiba 80 waan faa'iida boqolkiiba 20 waan khasaara boqolkiiba 85 waan faa'iida boqolkiiba 20 waan khasaara waa maalinta dhan okay boqolkiiba intaas aad khasaartay boqolkiiba faa'iida khasaara ganacsadaan ay midnihiin alaab markaan soo iibsado alaabtaas hadday iga dhacayso waxa weeyaan waa inaan degdeg u bixiyay waxay kamid tahay risk macnaha risk aan reward inaad badbaadin karto xoolaha iyo dhaqaalaha so that's what I do anu survivor baan ahay anu nin badbaada ah baan ahay waxaanan ka soo badbaaday inay riyooyinkayga iyo mustaqbalkayga burburaan waxaan ka soo badbaaday in aan horumar walba niigsanayo aan niyad-jab ka qaado waxaan isku tilmaamaa as qof survivor ah oo badbaada ah ayaan maanta aan isku arkaa idinka waxaan idinka rabaa inaad survivors noqotaan suuqan intuu doono ha kaa qaado ganacsi intuu doono ha kaaga cuno demo account adigu laakiin survivor noqo sidee baad u survive garoobaysaa markaad survivor noqoto dreamkaagana anigaa ku xaqiijinaya taa inaad xaqiijin karto because of naftaada aamin ilaahayba uu aaminsan yahay makhluuqaadkiisa so adiga inaad naftaada aaminto xaq waad u leedahay waxaan inaad qaban kartana xaq waad u leedahay so labada shayba adigu xaq waad u leedahay be a survivor do it you can do it waxaan adiga is hortaagan problemkan iminka aad ku jirto adiga iskugu waxan mar walba shaqada aad qabato maalin walba adiga choice-kaaga ku xiran adigu waxaad dooratay maaha wax idinku dooratay nafta maanta nolosha aad ku jirtaa waa nolol aad adigu dooratay marka qadarka alle laga imaado wixii kuu qoran
in aad maanta noqoto trader oo ku aasatahay waa adiga shakhsiyadda choice kaaga weeyaan so adigu inaad trader noqoto choice kaaga ma dabcan ka dhigi okay cashirkan idin wadaya motivationka xagga dambe idin ka dhigaya insha Allah waxaad isku daydaa mar walba inaad videos ka soo daawato si aad u fahmi karto every single detail aan ka hadlayo haddii aadan fahmin xaq waxaad u leedahay inaad telegramka naga weydiiso meesha ay wax ka qaldan yihiin sida ay u qaldan yihiin admins baa jira hoodaad traders maaha meel dadka lacag looga qaado si la aqoon loo baro waa meel dad walaalo ah lagu caawiyo xaggana waxaan u joogaa saacad ama 2 saac hal habeen walba idinku talagalay oo weekend aan ku jirin waxa weeyaan idinku caawiyo freegan aniga interest-ka igu jiray muxuu yahay energy bay igu jiraan aniga energy-gaas oo ah inaan mustaqballo badan dhisi karo beri ilaahay baa og mid maaragtay inta inaad wada najaxdaan inaad maaragtay heerkooda gaadhaan inay qaar gaadhaan kuwa kale inaad caawisaan marka aad beri heer gaadha adiguna isku dayin walaalo badan oo Soomaaliya aad caawin karto si maaragtay aad horumarka aad gaadhay selfishnimada uga saarto mar walbana guushaadu ay u socoto marnaba aanay istaagin ani maalin walba trade khasaare iyo ku aan win gareeyo I win taasana I'm a winner I'm a survivor that's habeen walba waxa ku seexdo survivor baa tahay waa ku seexdo maxaa survivor ku tahay broke baad ka timiday waxba maad haysan adigoo arday ah noloshaada marka loo eego ama family ka soo jeeda ama cidda tuuta ka soo jeeda maanta xitaa lacag haddii familygaagu leeyihiin lacagta inaad ku xisaabtanto waa qoonimo raganimo iyo biniaadanimo iyo karti ama gabadhnimo midna kuma jirto kartida dhabta waxay ku jirtaa markaad lacagtaada qaadato eed qaadan karto internetkan lacagta ku jirtaa ma xaqiiq waa dabcan waa xaqiiq haddii aad rabtaan million times baa idin tusayaa aniga oo la soo baxayo profitkayga iyo wax walba idin tusayaa haddii taanaad kusii xaqiiqsan kartaa lacagba anigu kaama rabe meesha ka faa'iidayso intaasumaan adigu maanta macnaha aan idiin sheegayaa cashirkeenii u dambeeyey haddaan u wareego risk and reward buu ka hadlayay risk and reward sidee baa khasaaraha iyo faa'iidada loo dheelitiraa bay ahayd horaan idinku soo sheegay examples baan society ku daawada aan daawanay cashirka caawa waxaa dhahdaa Martingale yahay Martingale waxaa loo yaqaanaa ayaan caawa baran doonaa Martingale waa maxay horta did you lose $1 $1 maad khasaartay ha $1 baan khasaaray next deal waa practice hada ku jira next deal waxaad galaysaa waxa loo yaqaano $3 deal ah sababtaad u galaysaay next deal $3 maxay tahay waa adiga oo ka soo kabtay waxaan aan idiin sheegay waxa ka wada horeeyay indicator on idiin soo sheegay maxaan ku rahdaa resistance iyo support on idiin soo sheegay waxa kaloo ka horeeya exit iyo entry point waxa ka horeeya OTM iyo ITM waxa ka horeeya positionadii wixii oo dhan marka aad sidaa tahay waad isku balance garaysantahay lacagta xaggeega soo dhaqaaqay xagga lacagta waxay noqonaysaa $1 miyaad khasaartay good next deal waxaad ka dhigaysaa $3 okay $3 maxaad uga dhigtay ma hubta analyzing-kaagan inuu meeshii saxda yahay kalsooni baan idiin soo sheegay qodobada ugu muhiimsan ee aad goodaa trades ama aad aniga macnaha igula trade garan kartaa yihiin $3 soo saar $3 maadaama $1 khasaartay $1 waxaad ku rabtay 80 sentiyo faa'iido ah maadaama 80kii halkiiba aad weyday si aad profitka position-kaaga uga sii wado $3 soo saar $3 maxaad kabtay waxaad kabtay khasaarihii marka hore faa'iido cusub waad next deal haddii markaa $3 aad khasaarto doba ka sii waa practice adigoo wadaya waxaan oo dhan waxa ka horeeya waxyaabaha idin soo sheegay 7 khasaartay ha 18 ka dhigoo level up don't worry analyzing-kaagu maadaama uu saxsan yahay adigu aad saxsan tahay the second time ha absanin gal waxaan markaan gal ku leeyahay waa practice ku gal anigu hadda kugula matalin wax la hadhay ka galasho mas'uuliyadda adiga ah anigu maxamed xanaanay anigu maalintan ka hubiyo adoo trade sax ay sameeynayo aan ku diro ayaad ani dhinacayga ka haysataa so waxay noqonaysaa next deal waxaad furaysaa $40 haddii aad profit samayso marka $40 saad u wada lacagta ku celinayso halka trade-da $40 samaysay baad gashay waxa loo wixii khasaare soo dhacay 7 iyo 8 iyo 10 iyo 3 iyo halkii wixii khasaare kale oo dhan baa iyo profit kooda isku automatic soo noqonaya waxa aad ka soo kabatay baa lagu yiri waxa loo yaqaan previous losses kaaga also made a profit waa profit badan oo samaysay
sidee baa Martingale right away loo sameeyaa yani markaaba loo sameeyaa yaro fudud aan kugu sheego MMC baa isticmaalaysaa ama habka loo yaqaano management money management baa isticmaalaysaa maxay tahay waxay tahay marka aad boqolkiiba 50 iyo khasaarto lacagta kugu jirta balance-kaaga waad joojinaysaa trade don't trade just contact me right away aniga ila soo xidhiid adiga ayaa ku mas'uula oo suuqa kaaga guidance ama ku ilaaliyahaaga ka ah aniga ayaa ka ah ilaaliyahaaga aniga oo maaragtay survivor ah oo ka soo badbaaday baa ilaaliyahaagii aniga ila soo xidhiid haddii kale waxaad khasaari kartaa lacagta so waxaan idin sheegay hadda as a trader markaan kuwi koodaa trades baad ku jirtaa macnaheedu ma tihid qof maaragtay aayar iskaga jira taageero iyo kaalmo xagga ku haysta so iska jir markasta lacagta manage kare okay aan samayno trading pattern wuxuu yahay trading pattern waa pattern waa event waa marxalad markaasuu soo noqdo suuqu markii hore deja vu baa la dhahdaa waa wax mar hore aad aragto mar labaad soo noqdo wejigii suuqu markii hore sameynayay baa imika soo noqday wejigii imika markii hore uu sameynayay maadaama imika soo noqdo marka dambe sidii markii hore waa ina maskaxdaada record garaysa waa in practice kan baad ku ogaan kartaa trading patternka markii hore position sameeyay uu soo noqday haddana halkii markuu dhow yahay waad ku celinaysaa uu soo noqday marka dambe waad iska yar bedelayo waad dareemaysaa automatically instinct waxa la dareen bini'aadan baa jira waa waxa aan ku leeyahay robot waxaas inaad isticmaasho ka banaantay meeshan traderskayna laguma isticmaalo robot waxa lagu isticmaalaa niyo karti qof iyo aqoonta ku isticmaalo okay muxuu yahay for example trend line ku two repeatable events buu leeyahay laba goor buu soo noqday meel kale ka soo noqday one breaking trend line baa jira xabad rebound from trend line ku xagga sare ka timid baa jirta that events baa loo yaqaanaa trading pattern because of that we use the patterns to make strategy patterns kan waa kuwa dhan in strategy ku tagi karana oo samaysan strategy ana maxaa idin soo sheegay in ay yihiin waxyaabo lagu tagi habka aad suuqa ku soo galayso ama siyaasada ku soo galayso chart analysis baa jira haddaba chart analysis ka hadda idin sheego waxa weeye marka waa su'aasha ah why anigu aanu ahay successful anigana cabdiraani kula hadlaya maxaanu ahay successful lacag badan aanu sameeyaa halka ay qaarkood traders lacag dhaba dhigtay ay la dhibaatooda ama ay la raftaan tradingkooga waa hal mid laba mid weeyi mid waa knowledge waa aqoon badan markastoo suuqa ka kororsato ama meeshaad ka trades ka kororsato wax badan baad faa'iidin kartaa khasaaraha ku yaraanaya experience baa jira experience waa shayga labaad khibrad inaad yeelato khibradu maaha wax aad sanadadaas iskaga jirtay haddana khibradii haddaad keensan weydo sawiran weydo wax maalin walba ku ag maraya ka cashir qaadan weydo khibrad ma haysid so maalin walba waxa weeyaan la sumad meesha ugu imanaysa so waxa weeyaan halka ay qaarkood maalin walba ay tirkarayaan iyagoo ku jira inta ku jira inka badan fadlan kaamirooyinka hala xidho kaamirada xidh baday kaamiradu furanta iga xidh please waxay noqonaysaa waxa loo yaqaano experience lacag baa u dhiganta okay this means haddii aad lacag zero experience aad haysato oo experience aad haysato you will make zero money experience ka lagu sheegaya lacag buu dhigmaa waxa experience lagu dhahay lacag buu dhigmaa so lacag maadaama uu dhigmo haddii aad zero experience tahay maxaa kuu soo baxay the zero money baa kuu soo baxaya in fact you lose money lacag baad khasaaraysaa and also waxay ka dhigan tahay waxa the more experience you have the more money you will make khibrad walba haysato lacag badan aad mar walba lacag haysato secrets that will show in years of your life macnaha chart analysis ka kuwaasoo macnaha noloshaada wax yar oo kooban kasoo koobi kara maxay tahay waxa ay tahay lacagahan iyo waxana maalin walba idin sheego ama idin la wadaago suuqaasoo hoos buu socdaa marka aan ku leeyahay lacagta marka dambe kordhi waxa weeye hadda hal baan dhigayaa anigu waxaan dhiganayaa $50 baan kala baxaya demo account $50 kayga hoos suuqii isku sii daayay okay xagaas oo kale ka soo noqdan galay waa inaan ku jiidayo waa candle-ka u dambeeyay inaan aanu baa ku jiido weeyaan candle-ka inaan ku jiidayo macnaha waxa weeye markaan aan iskarinayo kaas in hoos igu dhaadhaco si uu kor u tago ayaan ku jiidaa candle-kaas aan ku jiidaa candle-ka markaan ku jiido hadda halkaasaan baa u galay $50 baan galay lacagtii trade-kayga so maxaan xisaabsanayaa the more experience aad haysato the more money you make hadda $50 waxaan gashaday demo account
again gashaday ITM baa gashaday positionka ITM baa waxaad ku analyze garanaysaa trading pattern ku waa kan so de halkaa markuu gaaro surely waad ogtahay inuu kor u sii socdo okay aynu sugnana 29 seconds meeshuu suuqu socdo haddaan idin sii wado marka dhiirigelinta iyo waxyaabaha suuqa keena inaad khasaartay inaad weyn karayso waxaa kugu keeni kara inaad khasaarto okay waad aragtaan hadda trade-ka meeshaan ka bilaabay waa meesha hoose xaggaasan baa u galay isagoo sel suuqaasi u soo socda wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo Martingale please walaal video markaa waxaad aragtaa $41 ayaan ku faa'iiday within 1 minute khamaar marka maxaa lagu oranaya khamaar ma soo galaysa analyzing positionka lacagta dhigtay inuu intaan ka sarreeyo marka ku analyze gareynayo kana ii sheegaya aniga maxaa ii sheegaya waxa kuu sheegaya adiga kan baa kuu sheegaya kani markuu ku maamulo kan uu maamulayaa wuxuu markaas u qaas tagaya up uu tagaya up ayuu tagayaa markuu up tagayna waad garan kartaa suuqaas meeshuu ku socdo meeshuu ka iman karo okay aan ku tuso marka halkaa trade oo kalaan hadda weyn gareeyay ku kalaan rabaa inaan galo ka labaad maxaan u galayaa buy baaban kasii raacayba waxaan leeyahay buy-geedii waan usii galayaa markasta ood profit heshana profitkaaga sii kordhin maadaama khasaaruhu hadhow kugu badan karo khasaare inaad kordhiso u baahan tahay profitkaaga iska kordhin eedeyso wax walba waxay kugu dhici kartaa allah dhibaato okay hoos inuu soo noqdaan rabaa si aan kor ugu raaco because suuqa aan kor raacilaa maadaama indicatorkaygu halkaa kasii xajisanayo so hoos hadduu igu soo noqdo intaa 18 second ka hadhay waan galayaa haddii uu hoos u soo noqon waayona ma galaye out of the money ayay noqonaysaa so OTM-na horaan idinku soo sheegay ka jira mar walba lacagtii meel profit ku samayn kartaan ama position aad ku dhigi kartaan gasha ka soo noqo hadda USD iska daa waxaad soo baxdaa euro iyo New Zealand baa socdaa eegno iyaduna waxay ku jirtaa positionka iyadoo u badan suuqa waxa la yiraahdo buy laakiin problemka jira wuxuu yahay 1 minute plus available maaha 2 minute oo keliya available maadaama uu suuqan xirmayo soo ka soo noqo isaga 1 minute plus kaas ayaa 1 minute plus ah USD JPP waa JPP okay kana market uu iga xiran yahay aan filayaa saacadahan oo kale mostly saacadaha way xiran yihiin marketyadu filayna hal suuq oo keliya ku tirinayno si aan isaga ugu tirinayno hadda sell inaan u raacaan rabaa laakiin inaan u raaco maxay diiday inuu buy u galaan rabaa buy inaan u galo ayaan rabaa si aan buy ugu galo timeka kordhiso ka indicatorkaasi hadduu kaa cas uu gaaro waxa loo yaqaano kan bluega ah wuxuu suuqu u socon doonaa ka cas baa sarreyn doona micnaheedu wuu iska celinaya halkaa haddaad aragto kaa cas hadduu bluega isagoo taagaya marka bluega aad aragtay isagoo down afka usoo taagaya waxa weeye suuqaasi sell buu galaya markuu sell galayo waxaad ku analyze garanaysaa waxa loo yaqaano candlekani hadda wuxuu sameeyey buy xaggaasu buy ka sameeyey inuu sell galo ayuu rabaa sell si aan ugu galo xaggan geli $100 $50 baa igu jira okay inuu igu soo noqdo laga yaabaa suuqaas inuu buy sii gala laga yaabaa suuna buy u gelin ma hubno markaad samir la'aan gasho waad gali kartaa sell baad u gali laakiinse inaad iska sugtaa mar walba ku anfacaysaa because of inuu isceliyo rabaa hadda buy isku celiyo buy si isugu celiyo waxay ku anfacaysaa suuqii fadlan kaamirada iska xidha marka aad maaragtay soo gashaan because of videoga YouTube soo galaya in maaragtay dadkiina ay u arkaan maaha videoskiina so inaga xidha so waxaad arkaysaa suuqaasi inuu buy iyo sell isku celcelinayo buy iyo sell wuxuu hadda galay buy iyo sell buy buu galay hadda buy maadaama uu galay haddana sell buu kusoo noqonaya on time halkee buu ku imanayaa on time ku imanaya positionka haddaan ka galo entry point-kayga ka dhigo wuxuu noqon lahaa profit laakiin entry point-kayga maxaan ka dhigay samiriyari baan ka dhigay samiryaridi maxay dhigtay dhex bay ka bilay dhexdii halkee maraysaa 50 oo minus ah oo investment-kaageeda okay never mind suuqan si aan imika 50 u soo celiyo maxaan idin soo dhigay hadda
50 marka aan soo celinayo maxaan samaynayaa waa la bilaabaya si aan faa'iido la bilaabo u helo haddii aan khasaaro marka faa'iidada la bilaabo maxaan sameynaya waan soo celinaya okay positionka inta suuq meel uma socday hoos u soo noqon badan yahay laakiin baygii baa inuu soo dhamaysto u rabaa markuu bayga soo dhamaysto sel soo kali doona meeshaas waa hadda iska qabsaday afka sel buu bilaabayaa haddana baygu isku yaro celin doonaa maadaama uu sel baygu awood u yahay oo xagga sare tagay so anyway suuqyada indicatorkayga iyo meeshaan ka galaya isku eeg trade-ka aan inaa khasaaraya aad u aragta adigoo automatically waad garan kartaa ka aan meel fiican ka galana adigoo automatically iyo instantly waad arki okay codkayga si fiican ma u maqashaan inta aan videogayna good trade baan ku jirnaa si aan trade ku jirno inaan sugnaa waa macnaha waa wax muhiim ah si aad u hesho profit hada suuqaas inuu buy bilaabo inuu sell bilaabo ayaan rabaa inuu sell u bari doonaa si uu sell u bilaabana waa inaan u kala position u qalmaa position u qalmo si aan u helno meelaha sida entry point ku fiican oo ah ITM marka maxaa khasaaray trade-kii dambeeyay 50 baan khasaaray ka dambe se ma soo celiyaa waxaan soo celinayaa waan la bilaabanaya si aan u soo celiyo hadduu hadda buy u ordo buy buu badanaya hadduu laakiin sell buu dhaqaaqay sell uu sii haanaya laakiin hadduu sakanada u dambeeyay iska soo celinaya qiyaastii so inaan galno iminka waxay nagu hortaagan suuqa noocan oo kale ah waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku jira hadda macarkiisa resistance wuxuu ku jira meel aan dhinac jiha fiican oo badan u dhaqaaqayn so waa sidii cryptocurrency oo in yar unbuu kor u kacaya marka maxaan doonaynaa candleku inuu weji fiican samaysto haddana uu samaysto resistance support resistance support resistance support ma samayn karno videoga waxaan filaya inaan idinka samayno waqti uu suuqu furan yahay subaxiina waa waqtiga ugu badan in trade gareeya IT option lana trade gareeya IT option okay kan laftiisu dhexdu hadda jooga markuu meel sare jooga ama meel hoose jooga ama meel sare ayuu baahaya fiican yahay si fiican u trade gareyso suuqa weli baygii ma soo dhamaysan hadduu baygii soo dhamaysanaya hadduu baygii soo dhamaysanaya si aan ugu galno buy inaan helnaa sell si aan sell ugu galno waynu kor iyo dhaqaaqaa kadib aan buy idhaahda buy markuu dhaqaaqo kadib aan sell idhaahda hal mar oo buy hadduu isiin kaan waan galayaa laakiin sida hadduu ku socday suuqa waan ka joogaya okay waxyaabaha idiin soo sheegay waxaa ka mid ah samirku waa muhiim inaad suuqa iska sii karto because of hadda sell baan u geli lahaa kor buu u bilaabay candleka maadaama kor u bilaabay maxaan idiin sheegay hadduu meel sare geli lahaa anu hoos baan u raacaya laakiin meel sare ma joogay candlekii red aan arkay inuu red tagayana waan ku analyze karay marka redkii ima tagay de meesha uu joogo markaan jiro waa inaan isku miisaama ama ku balance kareeyo waxa loo yaqaano trade meesha ku xidhi karo waxaan rajeynaa codkayga si fiican u maqlaysaan kaasoo videogani waa video dheer oo trade isku jiro youtube-kana haddii aad fahmi weyda aad kaga ceshan doontaan hadda youtube-ka ka daawanaysaa ay mar walba ka faa'iidaysan doontaan insha allah oo intaa marketyada kale aynu sii eegno waxaa hadda inoo furan loo yaqaano euro iyo Australian dollar iyaga laftoodu position fiican oo ka dhaqaaqa okay inuu buy galu rabaa laakiin selka awood weyn maadaama uu intan dambeysisa lahaa indicatorkan marka la eego so hoos haddii uu soo noqdo profitkayga si aan usoo ceshado waxaan ku dadaalayaa waxa loo yaqaano inaan profit galo macnaha waa inaan meel sell ah ka raaco hadda hoos buu soo dhacdhacay so sell waan u raaci karaa buy waan u raaci karaa buy haddaan u raaco maxaan helayaa buy haddaan u raaco waxaan helayaa inuu suuqaasi sell sii galayaad aragtaa laakiin buyga kor inuu noqdaan rabaa sida aan hadda idiin sheegay inuu kor u noqdo ayaan rabaa walow positionka aan ka galaya uu yahay meel ciriiri ku ah inuu trade kala galo
saan hore idinku soo sheegay si management aad u gashaan martingale iyo waxyaabahaas iska ilaalin doontaan video walba oon dhignayna qiimuhu loo leeyahay marka loo eego traderska iyo waxyaabaha aynu ka ganacsan waxaana waxay ku xiran tahay khasaara ama khasaarin intaad aaminsan tahay cidi kuma khasbayso walaalow cidi kuma odhanayso gelin cidi kuma odhanayso waxaan waa sidan kitaabkana qur-aankana intuu ka aaminsan yahay video waxaa jira video badan ka hadlaya shuyuuq badan oo iyagu ka hadlaya inuu xalaal yahay haddii aad shaqaysanayso lacag caadiya ribo aanay ku jirin kan ribo kuma jirto faa'iidaad ugu talagashay waad sugaysaa diiniyan profitkayga 80 buu marayaa maxaa halkaa ka cad waxaa ka cad in khasaaro hore aan galay oo khasaarihii hore ka farak khasaariyahan intii tusay buy baan u galay markaan buy galayay waxaan galay meel sell ah baan ka galay buy baa halkaa ku jira traderkayga weyn maxaa tusay marka traderka dambe inaad adigoo intii hore stronger ka xoogan ka adkaysii badan khasaare intaa ka badan oo soo diyaar garo waa inuu kuu soo galaa haddii uu intaa kuu soo galo believe me brother sister waxaad tihiin traders qof trader ahna ganacsada weligiibuu khasaaraa weligiibuna uu guulaystaa ganacsina rasuulku caleyhi salaatu wasalaam isagaa u duceeyey baayic mushtarka waxa la dhahdo loo duceeyey so ganacsi markuu yahayna kani waa baayic mushtar so barakadiisu wataa haddii aad sidiisa ugu gasho haddii aad tidhaahdo gaalaalo khamri iyo wax walbaa lagu kala iibsada waxan waa lacag haddii aan dayno dee wax walboon isticmaalno waxa iskale gaala iskale maanta reer galbeed baa iskale laakiin danta baahida loo qabiyo diintu xalaal xaraam halkaasaad ka raacaysaa haddii laakiin aad tidhaahdo waa xaaraan oo rasuulkiina ma ogi oo shaqo u ogaama dee 100 shay oo rasuulkii ogeyno laakiin dan ah qaybta internetkana isticmaalaysaa dee hadduu xalaal iyo xaaraan yahay inaad isticmaalinba weeyaan marka diiniyan iskaga baxda weeyaan because of waxan waa internetkii qaybtiisii fiicnayd baan weliba kaga jirnaa meesha aad heesaha iyo fanaaniintan iscaaya iyo soomaaliyada isku mashquulshay iyo waxyaabahan maalin walba miidiyaha ka socday ee malayacniga ugu jira aad ugu jiri lahayd adiga oo faa'iido samaynaya ma xaaraanba mise waa xalaal keese xaaraarsan keebaase xalaalsan isweydii su-aasha so anu choicekayga waan qaatay adigu qaado survivor noqdo askari walba waa inuu survivor noqdaa si uu u badbaado so survivor noqdo dantaada ka raac waxyaabaha maaragtay mala-awaalka aan waxyaabaha ku keenin maalin walbana ku xisaabtan profit maalin walba profit enormous ah ku xisaabtan intii shalay aad damacsaneed in ka badan damac ani haddii la weydiiyo maanta guushaada waxaad bay leedahay waxaan ku jawaabaa anu guushayda yaa idhi xad bay halkee bay ku joogtaa marka la weydiiyo guushaada waxaa dhahdaa yaa idhi xad bayba leedahay jawaabteedu waa guusheedu xad bay leedahay bay yahay intuu ilaahay iga gaarsiiya anu guul ma daynayo hadda baa inaanu galaan raba suuqa si aan baa igu galo waa inuu hoos soo iga tegey kor buu sii baxayay inaad aragtaan baan filayaa laakiin markuu hoos soo dhaadhacay bay iigal buu ku lahaa waa signal bay iigal buu lahaa bay baan u galay haddaan u geli lahaa imika bayga waan ku macaashi lahaa arkaysaa intaan idiin sheekeynaya idiin waday hadalka ayaan sheegay so never mind waa trade aan idin keenin example waxana waa practice account waxaad arkaysaan tradekaas marka profitkaaga waxaad ka xisaab qaadanaysa waxaan kuusoo sheegay waxaa loo yaqaano meeshaad ka bilowday waxaan u dheeraanayaa waqtiguunu dheeraadaan nacayaa because of dadka youtube ka taaban doono ku dheeraado video ma rabo waxaan isku dayi doonaa inaan su-aalaha aan ka jawaabo cashirka habeen dambe ayayna ku jiri doontaa wixii intaa dheer si aan buy ugu raaco waa inaan buy u iigu soo noqdaa hal trade oo laa saacadii aan kala dhacdo laakiin meel hoose uma ka geli karaa anigu uma galaya hadda tradekaas waxaan filayaa timeka suuqa inuu isbedel halkaas u jooga okay hoos buu socdaa maaragta hoos buu socdaa weli hoos maadaama uu u socdo suuq xawli buu suuqa ku galay hoos xaalad aragta marka Charles Boxing hadda uu isbedelay waliba aad buu isku bedelay waa final iyo dabeecadda loo yaqaan waa candlestick maalin walba isbedela waraada candlestick maalin walba isbedelay haddii aad la qabsato maskaxdaada u sheegto nafsiyan baad u baranaysaa waxaad u baranaysaa adiga automatically baranaya halka uu candlesticks kan baaba dabeecad ku noqonaysa inaad barato aad maalin walba ka ganacsato maxaan idin tusay hadda trade baan galay meesha aan ka galay maxay ahayd inuu sell markuu yimaado aan buy u raaco because of xaggaasaa u rasistana marka candleka halkii candle eego xaggaas baanan ka faa'iideynaa inaynu faa'iido badan keeno so walaalahay waxaan rajaynayaa
exampleska aan idiin sheegay inay mar walba idin anfacaan. Haddii aadan fahmin please videogan waa available 24/7 YouTube oo kuu fudud oo browser ah fiican ka isticmaalaysaa. So use your technology. noloshaada ku faa'iidee, ku celcesho maanta ku cesho, beri ku cesho, saacad ugu cesho waxa aad fahmi weydo. Ku celcesho waxaan cashir ma aha aad lacag ka bixisay iskuulo lagugu khasbayo yaraantaadii maaha, waa wax riyadaadu ay kuu kalifaysa inaad qabato si aad horumar iyo uga gaarto ama meel weyn u sameyso. Waxaan rajaynayaa inaad ka guuleysataan ood ka guul gaartaan. Practice-kana ha joojinina. Maxaa idiin sheegay markaad galayso buy u galayso candlekaasi markuu xoog usoo dhaadhaco buy u gal 1 minute ka dhigo maxaan ku dhahdaa waxa loo yaqaano candle time period-kaaga calaamadda yar ee tigtay meeshaa ku qoran iska dulqaad because of waxay bedbedelaysaa jihada suuqu isku bedbedelaya haddii aad soo weynayso markaa si uun iskugu kaa bedbedelin oo signal isku bedela xaggooga u ahaadaan waxaad samaysaa waxa loo yaqaano muxuu ahaa candlestickska iska qaad calaamadda tigta. Okay, laba qof ayaa farta taagay. waxaan isku dayi doonaa inaan idinka faa'iideeyo su'aalaha. laakiin su'aalaha waxaan idinku sheegay saan hore idinku sheegay recording intaasaan ku xiri doonaa. waxa weeyaan live kale idinku fahansiin doonaa su'aalaha iyo jawaabaha. kadib markaa su'aalaha waxay ku fiican yihiin saan idiin sheegayba markaan live ku jiro sidoo recording ku dheeraan recording waxaan ku daynayaa hadda intaasaan ku daynayaa hadda waxaan rajaynayaa recording waan xiray su'aalahan ka jawaabi doono insha Allah. inta recording kala socotana mar walba ku soo noqoto insha Allah.